xildhibaan aadan barre ducaale waa xildhibaanka kaliya ee soo maray magaalada Gaarisa kaas oo si toos ah ugu xidhnaa culimada ku dhaqan magaalada Gaarisa waxa uu ahaa xildhibaan ku xidhan culimada kana mid ah bulshada diinta islaamka ku tiirsan waxa aana laba iloobaan ah ka soo qaybgalkii xalfadaha madaarista iyo meelaha quraanka iyo diinta lagu barto xildhibaan aadan barre ducaale waligii waxa garab iyo heel u ah inta uu xukunka hayay ku tiirsanaanta culimada iyo dardargelinta meelaha diinta islaamka lagu barto xildhibaan aadan barre ducaale waxa maragma doonto hadaba idin muuqata inta culimo ee ku hareeraysan kuwaas oo kamid ahaa dadkii u soo gurmaday maalinka ay masiibadu weyn ku dhacday magaalada Gaarisa si ay ugu soo boqdaan dadka dhaawac mudanaha aad doorato waa midka kula qaybsada murugiya macaanba aadan barre ducaale waxa uu kamid ahaa xildhibaanka kaliya ee bulshadiisa la qaatay murugada xilliyadii ay ka dhacday magaalada Gaarisa gumaadkii weynaa u geysteen ciidamada wadanka Kenya waxa idin muuqata isaga oo dadka si haleel u booqanaya isbitaalka ilmaduna indhihiisa ka qobanayso kaliya waxa uu awooday in uu soo booqdo niyadana u dajiyo waxa arkaysa isaga oo gacan marinay dadka jeefa sariirta korkeeda indhihiisuna ilmadu ka gobolaynayso tan waa qayb kamid ah waxyaalaha lama iloowaanka ee uu aadan barre soo qabtay 5 sano oo xilka hayay waxa cad oo muuqata in uu aadan barre ducaale kamid yahay dadka ay taariikhdu baalka dahabka ku reebi doonto sidii macaawilka wanaagsaneed ee uu la dhaqmo shacabkiisa ee uu matalahayay haddii ay noqoto dhanka dawladda dhanka dibadda iyo dhan kasta ay haataba waxa uu kamid ahaa xildhibaanka kaliya ee sida adag uga soo horjeesaday ansixinta biilkii argagixisada la dagaalanka isagoo oo meel cad ka istaagay cod dheerna uga soo horyimaaday ansixinta biilkaasi kadib kaas oo la qaateen muslimiinta Kenya ku jirta balada Gaarisa waa kuwan hadaladiisii qeexanaa ee ay ku dhismaayeen geesinimada a government that is unleashing terror on its own people. The Kenya Defence Forces, the last 24 hours, they have turned this town to exactly what they did in Kismayo. A state that tells the nation that is fighting terror is fighting its own people. And I want the President and the Prime Minister and the Minister for Defense to hear me very, very clearly. You will be shown the pictures how the Kenyan Defense Forces have burnt a city called Garissa, how the Kenyan Defense Forces have raped the women of Garissa, how the Kenyan Defense Forces, under the leadership of the the Commander-in-Chief, none other than Mheshimiwa Kibaki, how they have looted this town, how they have killed. We have more than 5 people killed. We have more than 15 killed and injured by bullets. It is very, very sad that the legacy of President Kibaki, when he has 4 months to live, when the Kenyan government has brought back the famous Wagala massacre. It is worse than Wagala massacre. And if the President and the government have any moral right, if they have any single out of morality, the President and the Prime Minister and the Minister for Defense should either resign or should come to Garissa and see what their forces have done. If they have any moral authority to govern this country, and I want the Speaker of the National Assembly to listen to this, I want the Chief Justice to listen to this, I want all the forces that stand for human rights to listen and come to Garissa. Article 241, the Kenya Defence Forces Bill, that as a member of Parliament I contributed, I put my input. Article 241B of the Constitution, specifically the Kenya Defence Forces. Today, Garissa is no different from Gaza Strip. It is no different. And Mr. President, Mr. Prime Minister and your coalition of government and the Minister for Defense, if you have any moral authority to run this country, you need a moral explanation to this country under the new constitution. Why the Kenyan Defence Forces have burnt a whole city, why the Kenyan Defence Forces have raped women,
why the Kenya Defense Forces as early as 2 hours ago are killing innocent Kenyans. If that is the war on terror, then we should be told that the war on terror is on the innocent residents of northeastern Kenya. دولة شعب كده كسر دوشة. دولة شعب كده كسر دوشة أدونك هذا أمورين. دولة شعب كده لا ينسو، هنتي هذي بوميسو، هوين كودي كفسنايين، تلين يرضى لا ينسو، بريو هذي بوميين. ودولة الدوينها إنه أجاده أي تهم مدحونا كباك هدور ربو إنه تاريخ كتعود أفضل بلا وصارته تاريخ إسرائيل إنه أنتوا طبعا كسروا مدح الأوهية إنه الشعب قبل كوكوي بدي مجال جارس وجمال ومن هالدقن تاريخ وقش أصيد دولتيس مركا وزير الدفاع أنا حلنا حالنا ما كنا هني حتى ما كنا علينا وزير الدفاع عيدا ماذا هذا سلك كل مجال جارس عيدا ماذا هذا وكبرينا من مسلمات هاي من صوماليات هاي وزير الدفاع هاي إذا ما هذا النجاشو إذا ما هذا سلقون كعشو إذا ما هذا مجالدي أداة قدرتي جمالها بس الدرة وين إلى وقت أن ضفك مارتس فكان جوان محلو غاز كلام محمد لواتو كلا جار إلى تطون جاريس أي حبت كل عضي بركوت كجيران في تركة دور يكونتنا أو ضاوع وين وجيران marka waa taraana ka noo taalo hadii saddex askari la dilay magaalo loo baabi'inayo magaalo loo gubaayo haweenkan loo qabsanayo dadkaana xabad loola dhacayo waa mid annaka aan ka tashan doono ilma iskool dhiganayaan oo imtixaan sameynayaan ay xabado lagu furay oo hadda aan kula hadlayo ardaydii baa xabadaha theater ku jiraan marka waxaan dhihi lahaa wasiirka difaaca magaalada u dhalatay gobolkana u dhalatay dadkan waa dadkaadii xalayna waan ku sheegay ciidamadaada aad hogaamiso magaaladaana nooga bixi kaambigaada meesha ka rar annakii ayaka islama deganaanayna magaaladan